السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال مانتا ومالنا عصب يا موضوع عصب. موضوع مانتين سو جيدين waxa uu yahay halkee ayuu ka yimid waxa loo yaqaan liwaadka afka qalaadna lagu magacaabo homosexual sida quraanku sheegay iyo xadiistu iyo sunnadu in laba jinsi oo isku mid ah qaybta abuurka sida lab iyo lab u taga dhidig u taga inay tahay xaraam maqdac sida la ogsoon yahay ereyga liwaad wuxuu ka yimid magaca qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen qolo loo tiiriyo inay yihiin ficilkan foosha qolada uu ka soo farcamay haddaba waxaa la isweydiinayaa waxay tahay waxaan oo ficilka ahi foosha xun meesha uu ka yimid iyo cidda asalkeeda lahayd qisooyinka ugu habboon waa qur-aanka qisaska uu ka waramo qur-aanku wuxuu ka waramaa qowm nebiyadoodii ay rumeeyeen iyo kuwa ay ku falaagoobeen waxaa ka mid ahaa qowmkii nebigoodii ku falaagoobay qowmkii nabiyullaahi luud calayhi salaam ma ka dhalan qoys caadi ah ee waxa uu ka dhasay qoys nebinimo ah aabbihii markuu dhintay waxaa ka faala qaaday nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo adeer u ahaa nebi luud isaga ayaana soo koriyey wuuna aaminay wuuna rumeeyey nebi ibraahim baa ka dalbaday nebiyullaahi calayhi salaatu wasalaam inuu u haajiro tuulo dadkeedu ay kaafiriin yihiin uusan ku dhex jirin qof muumin ah waxaana loo yaqaan tuuladan saduum sidii uu nebi luud diinta ugu yeero ilaahayna u baro nebi luud cagta markuu soo dhigay tuuladan wuxuu la yaabay xumaanbadnidooda waxayna ahaayeen dadka kuwa ugu sharta badan uguna xumaanta badan jidgooyo bay samayn jireen iyo xumaan jaadad kasta oo fool xun mana jirin cid ka reebta dembiyada iyo xumaanta ay falayaan dhinac haddii laga eego waaba iyaga oo ay ku quuseen xumaanta falitaankeeda maba kaga horeyn ummad ka xumaan badan ummaddan ee arliga soo madhay oo ay sababtu tahay inay labku isku shaawoon jireen iyadoo oo dhadigu joogo oo weliba naadiyada ay isugu imaan jireen iyagoo oo fali jiray iyagoo oo xishoodkii laga qaaday haddaba mayraxda isku dheggan aan feedhne oo qisada liwaadka say ku timi ani ka waramo waxaa la wariyaa in deegaanka saduum ee qowmkii nowlu deganaayeen inay ahayd meel barwaaqo badan oo miruhu sida ciidda ay yihiin dadkuna waxay ahaayeen kuwo u yimaada tuuladan si ay uga feedho buuxsadaan khayrka iyo barwaaqada ayaguna dadka tuuladooda imaan jiray ayay jidgooyo u samayn jireen waxa ayna waxyeelayn jireen cid kasta oo meesha soo madha aan ugu jeedo dhabbada tuuladooda suwaag madha ilaa la sheegay in ibliis nin dhallinyaraa isku soo ekaysiiyey waxayna dooneen inay dhibaateeyaan balse wuxuu ugu yeeray falitaanka xumaan ay isaga la sameeyaan wayna la sameeyeen ilaa ay ka caado yeesheen arrinkan waxayna doonteen inay ku sameeyaan qof kasta oo tuuladooda yimaada ibliis ayaa siiyey fikraddan sida ay dadku uga reebtoonaadaan tegitaanka tuuladan ee ay dadku imaanayaan ilaa uu falitaankii xumaantan u batay una noqday mid aad ugu fiday nebi luud markuu yimid tuulada wuu wacdiyey wuuna seexiyey way la murmeen lana doodeen in badan ilaa ay markii xujooyinkii nebi luud u watay ee furi waayeen ay ku yidhaahdeen cadaabtii alla noo keen haddaad run sheegaysa nebi luud calayhi salaatu wasalaam markuu quustay qowmkan wuxuu alle uga baryey in cirka dhagaxaan looga soo rido isaga iyo qoyskiisa inta raacdana la badbaadiyo alle ducooyinkii waa ka aqbalay inta ay malaa'igtu soo gaadhin inta aysan malaa'igtu soo gaadhin waa malaa'igtuu soo diray alle ee qowmuluud waxay aadeen nebi ibraahim gurigiisa iyagoo oo muuq bini aadan isu ekeeyey nebi ibraahim waa uu karaameeyey ilaa uu loogay dibigii lagu sheegay 10 xayawaan ee jannada galaya cunidii
u diyaariyey buu u geeyey. Wuu ka cabsaday, waayo ma aysan cunin cuntada u geeyey. Wayna dejiyeen, waxayna u caddeeyeen inay malaa'ig Ilaahay yihiin, cid waxna cunin waxna cabbin. Markaas waxay uga warrameen inay u socdaan inay halaagaan qoomkii Nebi Luud. Nebi Ibraahim waa uu cabsaday walaalkiis wiilkiisa ee Nebi Luud ee uu diray tuuladaas daalimada ah, waxuuna doonay inuu la doodo. Wuxuuna weydiiyey, Ilaahay ma halaagaa tuulo ay 300 oo mu'miniin ah joogto? Ay ugu jawaabeen, maya. Markaas tirada isagoo yaraynaya Nebi Ibraahim ayuu weydiiyey, Ilaahay ma halaagaa tuulo uu joogo mu'min keli ah? Waxay ugu jawaabeen, maya. Markaas buu Nebi Ibraahim u sheegay inuu wiilka adeerku yahay ee Nebi Luud uu joogo tuulada ay halaagi doonaan. Waa ay dejiyeen niyaddiisa, ayagoo u sheegay inay ogyihiin inuu joogo, wayna badbaadinayaan isaga iyo ciddii raacdaba, ooradiisa mooyaane. Sida horey kusoo xusnay, waxay tuuladoodu ahayd sidaan horey kusoo xusnayba waxay tuulada soo galeen malaa'igtu ayagoo wata suurad dhalinyaro oo aad u qurux badan. Waxay soo galeen tuuladii, waxaana u sheegtay Nebi Luud gabadhiisii. Markaas waxay u sheegeen Nebi Luud inay ahaayeen socoto safar ah. Nebi Luud ayay ka codsadeen inuu gurigiisa ku martigeliyo, way ka dhiidhiyi weyday inuu ka diido dalabkoodii. Wuxuuna uga digay inaysan tuulada soo gelin, waayo waa qudhun iyo xumaani dhex saaqday. Taasina waxay ahayd shahaadada uu Nebi Luud u yahay inay ku falaagoobaan. Ilaahay ma cadaabo qowm ilaa ay rasuulkoodii ku falaagoobaan. Dalabkoodii waa uu aqbalay, wuxuuna ugu kaxeeyey xaafadoodii si dhuumashada si ay qowmkiisu u arag. Nebi Luud martidii gurigiisu geeyey, meelna waa uu ku qariyey si ay cidna u dareemin. Ilaa ooradiisa oo kaafirad ahayd ayaa qowmkii u tagtay una sheekaysay in Nebi Luud dhalinyaro aad u qurux badan uu gurigiisa ku martiyey. Waa ay soo degdegeen qowmkii, ayaga oo waxa ahaan doono amarkooda oo ah falitaanka xumaanta ee ay martidan la falayaan. Albaabka ayay soo garaaceen, wuu ka diiday inuu ka furo. Markaas Nebi Luud way ku xanaaqeen oo ku yiraahdeen, miyaanan kaaga digin Nebiyullaahi Luudow inaad raggeenna aad gurigaaga ku aqbasho? Wuxuu ku yidhi Nebi Luud, haddaan ehel iyo awood lahaan lahaa hadalkaas kumiina hadasheen. Waa uu Nebi Luud naseexiyey inay fidradooda meesha lagu talagalay ku gutaan, waana xaasaskooda. Iyaguna way khilaafeen fidradoodii. Nebi Luud wuxuu soo galay martidii isaga oo ka xun waxa dhacaya. Markaas buu Jibriil wuxuu ku yidhi, haddaan ehel iyo awood lahaan lahaa hadalkaas kumiina hadasheen. Waa uu Nebi Luud u naseexiyey qoomkiisii inay fidradooda meesha uu Alle ugu talagalay ku gutaan, waana xaasaskooda. Iyaguna way khilaafeen fidradii. Nebi Luud waxa uu soo galay martidii isaga oo ka xun waxa dhacaya. Markaas buu Jibriil niyaddiisa u dejiyey. Inta uu bannaan ku baxay ayuu baalkiisa wejiga kaga dhuftay, ilaa iyagoo aragla ay guryahooda qabteen, ayagoo ku taamaya aargoosi. Radadan kadib waxay malaa'igtu amadhay inay tuulada ka baxaan isagay inta rumaysay, waana gabadhiisa oo keliya cidda rumaysay. Ooridiisuna waa ay ku fallaagowday. Waxaa kaloo lagu yidhi, dib ha u soo eegin ilaa ooridaada mooyaane. Waxayna amreen habeennimo inay baxaan, waayo subaxii baa cadaabka lagu soo daynayay. Markaas buu Jibriil baalkiisa kor intuu ugu qaaday tuuladii ilaa ay soo baxeen biyaha badda ee madow. Waxa uu samada looga soo daadiyey dhagxaan, isagoo dhagax walba uu ku qoran yahay qofka uu ku dhacayo magaciisa. Jibriil baa ku qayliyey qaylo guryahoodii dumisay iyo tuuladoodiiba. Ilaa hadda qowmkaasi sawiradooda haddaad taariikhda ku aragtid, ayagoo waxaa arkaysaa sanamyo camal noqdayo dhagax noqday. aad baa u mahadsantihiin. Muuqaalka intaan maanta ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.